maanta waxaa jiro walaalo fara badan oo ereyga ka shaqeeya haddana qalbigooda iyo waxa ku weyn iyagoo ay tahay dad kaleeto inay arkaan, dad kale inay qadariyaan, dad kale inay ciseeyaan oo ay sharaf u yeelaan. qaar waxaa jiro ku raadinaya lacag iyo dakhli inay ka sameeyaan, qaar waxaa jiro in magac ay ku sameeyaan. waxaasoo dhan waxaa sabab u ah waxaa ku weyn dunida iyo waxa dhex yaalo. haddii maanta marka adduunka uu kugu weyn yahay, inaad lacag hesho ay kugu weyn tahay, inaad maal tabcato hanti samaysto ay kugu weyn tahay, in dad kaleeto ay ku qadariyaan, dad kaleeto ay ku sharfaan, dad kale ay ku koolkooliyaan because of maxaa yeelay ereyga ayaa dadka la wadaagtaa. waxaa tahay nin wadaad ah, magacaasaa leedahay. haddii ujeedkaagu sidaas uu yahay, waa khasaarto walaalkaygu iyo walaashaydii. muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa rabbi ammaanka iyo caabudidda Ilaahay. ku soo dhawow muuqaalka. waa tahay rabbi ammaan iyo caabudid. runtii mowduucan waa mowduuc aad iyo aad u baaxad weyn oo u qoto dheer, laakiin waxaynu isku dayaynaa inta ugu muhiimsan inaan soo qaadano. ugu horeyn, maxaa maskaxdaada ku soo dhacaya markii aad maqasho rabbi ammaan iyo caabudid? rabbi ammaanka iyo caabudidu waa caalami, yacni waxaan ula jeedaa rabbi ammaanka iyo caabudidu waa wax dunida oo dhan laga wada yaqaano. caabudidu waa dareen dabiici ah iyo baahida aasaasiga ee qof walba. rabbi ammaanka wadooyinka loo isticmaalo waxaa ka mid ah in la heeso, la sheego, la bixiyo ama la khirto. sidoo kaleeto waxaa ka mid ah ku shukrida nimcooyinka Eebbe iyo inaan ugu bishaareyno akhbaarta wanaagsan kuwa kaleeto. marka muxuu kitaabka ka yiri ammaanta Rabbi? zabuurada cutubkeeda 18 waxaynu ka arkaynaa Ilaah inuu mudan yahay ammaanta. sidoo kaleeto zabuurada cutubka 19 waxaan ka arkaynaa samooyinka inay ammaanaan Rabbiga, inay daliil ama caddeyn u yihiin ammaanta Rabbiga. sidoo kale zabuurada cutubkeeda 96 waxaynu ka arkaynaa ammaanista Rabbiga inaynu u isticmaali karno gabay iyo buraanbur. sidoo kale zabuurada cutubkeeda 98 waxaynu ka arkaynaa ammaanista Rabbiga inaynu u isticmaali karno hees, hadday tahay qaaraami, hadday tahay raab, hadday tahay waxa weeyaan durbaan, waxay noqotaba ha noqotee inaynu ammaanta Rabbi aan u isticmaali karno hees. sidoo kale isla zabuurada cutubkeeda 103 waxaynu ka arkaynaa in malaa'igtu ay ammaanaan Rabbiga. sidoo kale zabuurada cutubkeeda 117 waxaynu ka arkaynaa in dadku ay ammaanaan Rabbiga oo ay tahay inay ammaanaan Rabbiga. sidoo kaleeto isla zabuurada cutubkeeda 145 waxaynu ka arkaynaa ammaanista Rabbiga inay naga noqoto go'aan oo aynu ammaano Rabbiga ilaa nolosheenna inta ka dhiman. isla zabuurada cutubkeeda 150 waxaan ka arkaynaa in Rabbiga aanu ku ammaani karno ciyaar, hadday tahay mid dhaqameed iyo mid kaleetaba. sidoo kaleeta zabuurada cutubkeeda 79 waxaan ka arkaynaa in ay tahay abka inaynu ammaano Rabbiga oo farcanka ka dambeeyaba inuu ammaano Rabbiga. sidoo kaleeto faalimaha rasuulka cutubkiisa 16 waxaan ka arkaynaa inaynu ammaano Rabbiga xaalad walba oo aynu ku sugannahay, hadday tahay mid adag iyo hadday tahay mid kalaba. sidoo kaleeto cibraaniyada cutubkeeda 13 waxaan ka arkaynaa in ammaanista Rabbiga ay la mid tahay allabariga. sida tusaale kaleeto inaad xoolo inta soo qaado aad u gowracdo Rabbiga oo kaleeto ayay la mid tahay ammaanista Rabbiga. sidoo kaleeto Butroska 1 cutubka 1 waxaynu ka arkaynaa iimaankaba inuu keeno ammaanta Rabbiga, yacni iimaanka inuu kuu horseedayo inaad Rabbiga ammaanto. isla Butroska 1 cutubkiisa 2 waxaanu ka arkaynaa dadka uu Rabbiga doortay inay ammaanaan Rabbiga oo ay ammaantiisa afka ay ku haayaan. ammaanta runta ahi si qalbiyan ayay u timaadaa, natiijada ay keentana
waa qaar kale inay arkaan shaqada Ilaahay. yacni ammaanta dhabta ah ama ammaanta sida qalbiyan u timaado Rabbi ammaanka ah waxay keentaa faa'iido. tusaale falimaha rasuulka cutubkiisa 16 aayadda 25 waxay leedahay habeenbarhka Bawlos iyo Silas ayaa tukanayay oo Ilaah gabay ku ammaanayay, maxaabiistuna way dhegeysanayeen. waxaynu arkaynaa in Paulos markuu xabsiga ku jiray habeen saq dhexe ah ayagoo xabsi ku jira xaaladu ay ku adag tahay, asaga iyo Silas inay Rabbiga ammaaneen oo ammaantiisa afkooda aysan ka zuulin. ammaantaas ay ammaanayeenna maxaabiista dadka kula jiray inay maqlayeen oo ay dhegeysanayeen. marka ammaanta daacadda ahi ammaanta si qalbiyin u timaada, xaalad kastoo aad ku jirtaba waxay keentaa faa'iido, taasoo ah inay maqlaan dadka kaleeta ee aanan Rabbiga weli rumaynin. caabudidda waa qaabka ugu sarreeya ee sharaf iyo ixtiraam aan u muujin karno qof ama shay. baxniintii cutubka 34 aayadda 8 waxay leedahay markaasaa Muuse intuu dhaqsaday uu sujuuday oo caabuday. sidoo kaleeto aayad kaleetana waxay leedahay kolkaasaa Cisra ammaanay Rabbiga ah Ilaaha weyn, oo dadkii oo dhammuna intay gacmaha kor u qaadeen ayay ku jawaabeen aamiin aamiin, oo intay madaxa foorariyeen ayay Rabbiga u sujuudeen oo wejiga dhulka saareen. aayadahan waxaynu ka arkaynaa in Rabbiga uu nagu weynaado, in wax kastaba haba ahaadaane laakiin Rabbiga uu noqdo midka nagu weyn, in Rabbiga uu noqdo midkeena koowaad, in Rabbiga uu noqdo midkeena ugu dambeey, in Rabbiga uu noqdo midka aan qadarinayno, midka aan sharfeyno, midka aan caabudayno. marka muxuu kitaabka ka yiri caabudida? horta intaynaan u gudbin waxa uu ka yiraahday su'aal waxaa imaanaydo yay tahay cidda la caabudayo, waayo cidda la caabudayo. isla su'aashaas jawaabteedana waxaynu ka helaynaa kitaabka, oo hadaa fiirido Matayos cutubkiisa 4 aayadda 10 waxay leedahay Ciise wuxuu ku yiri shaydaan yahow bax, waayo waa qoran tahay waa inaad caabudo Rabbiga Ilaahaaga ah oo waa inaad isaga kaliya u adeegto. halkaa marka waxaan ka arkaynaa cidda mudan ama cidda kaliya ee mudan in la caabudo inay tahay Rabbiga Ilaaha ah. maadaama marka aynu ogaanay cidda la caabudayo inay Ilaahay oo kaliya u yahay, sidee marka u caabudeynaa? su'aashaas ayaa imaanayda, sidee u caabudeynaa? su'aashaas ah sidee u caabudeynaa jawaabteedana waxaan ka helaynaa isla kitaabka oo isla Matayos hadaa fiirido cutubkiisa 22 aayadda 36 ilaa 40 waxay leedahay kolkaasuu ku yiri isaga waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan. kanu waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horeeya, ku labaad oo u egina waa kan, waa inaad dariskaaga u jeclaataa sida naftaada. sharcigii oo dhan iyo nebiyadii waxay suran yihiin labadan qaynuun, yacni labadan sharci. aayadahan waxaan ka arkaynaa qaabka aan u caabudayno Ilaahay inay tahay in nafteenna, qalbigeenna, caqligeenna dhammaan aan ka jeclaano Ilaahay, yacni inaan Ilaahay isu dhiibno iyaan ku caabudeynaa. sidoo kale waxaa soo labeynayo in dariskeena aan jeclaano, yacni ummadda dadka oo dhan inaynu jeclaano, in wax naceeb la dhaho dhan oo banaankaas naga ahaado, waayo Ilaahay aayad kaleeto waxaa jirta dhaheedo Ilaahay waa jacayl. qof kasta oo asaga ka imaadana dadka ayay jeclaanayaan. marka jacaylka dadka aad jeclaanaydu waaba qayb kamida caabudida Rabbiga caabudeedu, waayo waxa uu yiraahday dariskaaga jeclow, oo sharciga qaybta nambarka 2 iyayba kamid tahayba. Rabbiga Ilaaha ah oo aan jeclaano oo qalbigeena iyo maskaxdeena iyo nafteena iyo maalkeena aan ka jeclaano, dabadeedna dariskeena aan jeclaano. Yooxana cutubkiisa 4 waxa uu leeyahay laakiin saacadii baa imaanaysa waana joogtaa iminkada markii caabudayaasha runta ahi ay Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta, waayo Aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale. Ilaah waa ruux,
kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta. Yoxana waxa uu leeyahay marka ilaahay waa ruuxo, dadka caabudaya ilaahay waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta. ciise masiix waxa uu yiraahday anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. ciise masiix waxa uu yiraahday anigu waxaan ahay runta. Yoxana aayada kale wuxuu ku leeyahay ilaah kuwa caabudaya waxa ay ku caabudayaan ruuxa oo ah ruuxul quduus, ruuxa quduuska iyo runta oo ah ciise masiix. ciise masiixna halkan isaga waa tuu ku leeyahay anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. oo yacni ninna jannada geli maayo ilaa aniga waxa weeyaan uu rumeeyo maahane. caabudidu waxay bilaabataa ogaanshaha iyo qirashada. qof walbana wax ayuu caabudaa. waa maxay waxa aad mar walba u heelan tahay? waxa mar walba qalbigaaga ku weyn, maskaxdaada ku weyn? ma hantiya, ma aflaama, ma social media, ma cayaaraha, ma lacaga? waa maxay? isweydii adiga su'aashaano waa maxay waxa kugu weyn? ma hantiya kugu weyn oo qalbigaaga ku weyn inaad maal tabacdo oo waxa weeyaan 24 saac wax kasta aad u sameynayda daraadooda si aad hanti u yeela lahayd? su'aashaas markaad isweydiido oo jawaabteeda aad hesho waxa kugu weyn, su'aashan kale isweydii ma u khalmaan inaad u go'do waxaas? yacni ma u khalmaan waxaan 24 saac inay kugu weynaadaan? ma u khalmaan waxaan sida dadban inaad u caabudo? Romans cutubkiisa 12 aayada 1 ilaa 2 waxay leedahay haddaba walaalayaalow waxaan idinku baryayaa ilaah naxariistiisa inaad jirkiina ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduus ah oo ilaah ku farxo, waana cibaadaysigiina caqliga leh. ha u ekaanina dadka ifkaan, laakiinse ku bedelma cusboonaanta maankiina inaad hubsataan waxa ay tahay doonista ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxo oo kaamilka ah. aayadan waxaan ka arkaynaa ama uu Paul nagaga digayaa inaynu u ekaano dadka ifkaan. wuxuu leeyahay ha u ekaanina dadka ifkaan. aayadan marka waxaan ka baranaynaa ama aan ka arkaynaa in totaliba banaankaan ka istaagno dunidan, in banaankaan ka istaagno oo aynaan u ekaanin dunidan sida ay u taalno, inagoo samaynayna doonista ilaah iyo sida ilaahay uu rabo. sida ilaahay marka uu rabo waxaynu ku samayn karnaa in ilaah aan weyneyno oo u hogaansano doonistiisa. sidoo kaleeto inaan muujino jaceylkiisa iyo ka cabsashadiisa. cabsashadan ma ahan cabsashadii argagaxa iyo anfariirka laheede. cabsashadan waa midii jaceylka ku lamaaneed, waayo qofka jeceshahay waa ka baqaneeda oo waa qadarineeda. marka inaan jaceylkiisa muujino ilaahay ka cabsano. sidoo kaleeto ha u ekaanin dadka dunidan, sida Paulos uu yiraahday ha u ekaanin dadka dunidan. maanta waxaan ognahay dunida in xumaantii ugu darneed ay maanta caadi noqonayaan, oo maanta hadaad aragto waxaynu ognahay dunida sida ay u taalo. maanta dunida sida ay noqonayda waa u jeednaa in waxa weeyaan la isbaraayo, in la isku tashkiilinayo, in caadi laga dhigayo nin inuu nin wax ka dayo, gabadhu inay gabar wax ka daydo. adduunka maanta la caadiyeynayo wax kasta oo dembi ah. maanta waxaynu arkaynaa dunida inay caadiyeynayaan. dunida ha u ekaanin oo ha ugu ekaanin qaabkay u hadashaa oo hadlin. ha u labisan qaabkay u labisato. ha u fakirin qaabkay u fakirto. ha caadiyeynin waxa ay caadiyeyso. dhammaan fakirkaaga ha ku saleysnaado kitaabka, ha ka socnaado dunida qaab fakirkeeda. ilaah wuxuu inoogu yeeray inaynu caabudno isaga, inaynu isaga uu nagu weynaado. midkeena koowaad iyo midkeena ugu dambeeya inaan ka dhigno isaga. midkeena koowaad midkaan qadarinayno, midkaan madaxa saaranayno, midka xaalad walba ku sugannahay aynu ku laabanayno inuu isaga noqdo. meel kasta, si kasta iyo maalin walbaba inaynu isaga caabudno, isaga aynu fiirsanno. waxaan kusoo gunaanadayaa su'aalahan inaad isweydiido. sidee jirkaaga ugu bixin kartaa caabudida ilaahay? yacni waxaan ula jeedaa hadday tahay dhagaha waxaa ku maqleedid, hadday tahay indhaha waxaa ku daawanaydid, hadday tahay carabka waxaa kaga hadlaydid, hadday tahay gacanta waxaa ku qabanaydid, hadday tahay lugta meesha aad ku aadaydid, dhammaan isku soo duubo sidee jirkaaga oo dhan aad rabbiga ugu caabudi kartaa? sidee jirkaagoo dhan aad rabbiga ugu caabudi kartaa? yacquub cutubkiisa
koowaad aayadda 27 waxay leedahay cibaado daahir ah oo aan nijaas lahayn iyo in la iska dhowro wasakhda dunida. marka waxay noqonaydaa sidee isaga dhowreedaa wasakhda dunido korkaaga oo idil sidee rabbiga ugu caabudi kartaa. su-aasha labaad oo ay tahay inaa isweydiido waxa weeyaan sidee maskaxdaada u cusboonaysiin kartaa. maanta waynu ognahay dhalinyaro haddaynu nahay waxaynu ka fakirayno waxyaabaha munaasabka aanan ahayn oo aynu ka fakirayno waxa maskaxdeena ku weyn iyo waxa dunida maantadan joogo waxa ay ka fakirto iyo waxa ku weyn iyo waxa ay qadarido waynu ognahay. marka maskaxdaada sidee waxaas uga tirtiri kartaa oo aad ugu cusboonaysiin kartaa ereyga Ilaahay iyo waxa uu raali ka yahay. sidee maskaxdaada u cusboonaysiin kartaa. su-aasha saddexaad oo ay tahay inaa isweydiido waxa waaye sidee u joojin kartaa la jaanqaadka adduunka. Kolosay cutubkiisa 3 aayadda 23 waxay leedahay wax alla wixii aad samaysaanba xagga qalbiga ka sameeya sidii idinkoo rabbiga u sameynaya oo aan dad aawadiis u sameynaynin. maanta waxaa jiro walaalo fara badan oo ereyga ka shaqeeya haddana qalbigooda iyo waxa ku weyn iyagoo ay tahay dad kaleeto inay arkaan, dad kale inay qadariyaan, dad kale inay ciseeyaan oo ay sharaf u yeelaan. qaar waxaa jiro ku raadinaya lacag iyo dakhli inay ka sameeyaan, qaar waxaa jiro in magac ay ku sameeyaan. waxaasoo dhan waxaa sabab u ah waxaa ku weyn dunida iyo waxa dhex yaalo. haddii maanta marka adduunka uu kugu weyn yahay, inaad lacag hesho ay kugu weyn tahay, inaad maal tabcato hanti samaysto ay kugu weyn tahay, in dad kaleeto ay ku qadariyaan, dad kaleeto ay ku sharfaan, dad kale ay ku koolkooliyaan because of maxaa yeelay ereyga ayaa dadka la wadaagtaa. waxaa tahay nin wadaad ah, magacaasaa leedahay. haddii ujeedkaagu sidaas uu yahay waa khasaarto walaalkaygu iyo walaashaydii. ciise masiix waxa uu yiraahday waxaad iyaga ku garan doontaan mirahooda. waxaad iyaga ku garan doontaan mirahooda. ciise masiix kuwa rumeeya, ciise masiix kuwa ku weyn yahay, kuwa wadada ciise masiix qaaday mirahooda ayaa la yaqaanaa. kuwa ciise masiix wadadiisa aanan qaadin ee adduunyada wadadeeda qaadayna mirahooda ayaa la yaqaanaa. maxaad dhihi doontaa, maxaad samay doontaa maalinta ciise masiix aad hor istaagto ee aad tiraahdo rabbiyow rabbiyow magacaaga. dad badan ayaan ku wacdiyey, rabbiyow magacaaga Soomaaliyan kaga wacdiyey, rabbiyow Soomaalidan kaga wacdiyey, rabbiyow Soomaali badan ayaa magacaaga baray, rabbiyow maalinka aad tiraahdid ee ciise masiix uu ku yiraahdo kuma aqaanay iga fogow, kuma aqaanay iga dheerow, kuma aqaanay iga tag, maalinta uu ku yiraahdo maxaad samaynaysaa? waayo waxa aad sameynayday uma aadan sameynaynin isaga daraadiisa. waayo dadka aad wacdinayday, dadka ereyga aad barayday, magaca aad sheeganayday, ka shaqeynta ereyga aad kaga shaqeynayday, kaniisad ha ahaato ama meel kale ha ahaatee, wax kastoo aad qabanayday uma aadan qabanaynin isaga daraadiisa, bal waxaad u qabanayday in dad ay kugu maamuusaan, in dad ay kugu sharfaan, inaad magac ku heshid, in lacag aad ku heshid. dunida waxa ay tahay unbaad u sameynayday ee uma aadan sameynaynin ciise masiix. that's why ciise masiix uu yiraahday kuwayga ama kuwa kaleeto waxaad ku kala garan doontaan mirahooda ama miraha ay dhalaan ama faa'iidada ay keenaan. marka walaalkaygu iyo walaashaydii waxaynu isku dardaarmaynaa in ciise masiix uu nagu weynaado. haddii ciise masiix boqorkaaga uu yahay, haddii ciise masiix midka aad tala saaratid uu yahay, ciise masiix waxa uu yiraahday boqortooyadayda halkan ma ahan. mar haddii ciise masiix boqorkaaga uu yahayna waa inaysan ahaanin boqortooyadaada halkan, waa in adduunyadan aysan dhibaato kugu haynin iyo ka fikiristeeda ee ciise masiix halkii uu qaaday waa in aynu qaadno. rabbina ha naga yeelo kuwa wadadiisa ku taagnaada, rabbina ha naga yeelo kuwa shaydaanka kaga adkaada magaca ciise masiix. cibaadada dhabta ahi waa midda bedesha qalbiga, habfakirka iyo dhammaan qaab nololeedkaaga. caabudista dhabta ama cibaadada dhabta ahi waa midda bedesha qalbiga, habfakirka iyo dhammaan qaab nololeedkaaga. that's why ciise masiix uu yiraahday waxaad iyaga ku garan doontaan mirahooda, waxaad iyaga ku garan doontaan mirahooda. rabbi ha naga yeelo
kuwii wadadiisa ku taagnaado shaydaanka kaga adkaada adduunka aanan ku mashquulin ee waxa weeyaan ku mashquula ereyga weyneeya rabbiga aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan idiin rajeynayaa barwaaqo iyo caafimaad